مسؤولين هركعيو قدومي ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Axmed Muumin Saad ayaa kormeeray goobaha ay diiwaangelinta ka socoto ee gobolka Maroodijeex. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Qadar Kaafi Muuse. wafdigani uu horkacay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna gusimaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Axmed Muumin Saad ayaa saaka booqday degmada Dar es Salaam oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Hargeysa. wuxuuna wafdigani soo indheeyay goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixintu. markii uu wafdigani goobta gaadhay waxa uu halkaasi xog wareysi la yeeshay shaqaalaha goobta ka shaqeynayay. dadka ku dhaqan degmada Dar es Salaam umay kala harin soo dhaweynta wafdiga Axmed Muumin Saad gudoomiye ku-xigeenka koowaad xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Cabdullaahi Urcad oo weheliyo xogayaha warfaafinta xisbigaasi Cabdirashiid Xasan Matan ayaa u mahad celiyay dadka deegaanka waxayna ugu baaqeen inay isdiiwaangeliyaan. laakiin gobolada dalka ka duwan loo inaga wax laga rabaa tiradii Hargeysa ay lahayd deyn la muujiyo. Dar es Salaam halka ilaa waqooyi baa xukutaan tirada la idiga rabaa waxa weeye tiro aad u badan. haddaad doonaysaan in xaqiina heshaan codeeya waxaanu xaqiinu ku xidhan yahay kolba sida u codeysaan. hadda lagama hadlayo maanaan imanin wadani raaca kulmiye raaca ucid raaca xukuumadda raaca waxa uma socno. hadda waxaanu socnaa waxa weeyaan waa diiwaangelintaasi qiimaha ay leedahay ina siisaan. waxa loo socdaa waa diiwaangelinta. muhiimadda diiwaangelintu leedahay waa la sheegay taan baan si adkaynaynaa. waxa maanta waa la istirinayaa. waxa la isku tirinayaa degmo iyo deegaan. waxa wax lagu qaybsanayaa tirada la soo baxo. Dar es Salaam waxa la rabaa inay tiradooda muujiyaan si ay u helaan adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan. hadday tahay dariiq, hadday tahay iskuul, hadday tahay caafimaad, hadday tahay station police la sheegay iyo waxyaabo kale oo lamid ah. waxa wax lagu qaybsanayaa waa tirada deegaanku la soo baxay. waxaan u nimid halka saaka waxa weeye inaanu indhaindhayno xaaladdu say u socoto diiwaangelintu oo runtii aad ogtihiin inay nagu joogto qiimo badan oo muddo badan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka muddo badan muxuu ahaay arrintaasi qaylo badan ka taagnayd. marka waa fursad runtii dahabiya tan maanta ay shacabka reer Somaliland haystaan. marka dadku waxaan ugu baaqaynaa inay reer Dar es Salaam iyo degmooyinka kaleba inay si aad iyo aad mug iyo miisaan la isku diiwaangeliyaan. qofka maanta kaarka qaadan waaya mar labaad chance uu kaarku qaato ma helayo. chance fiican baynu haysanaa. marka chance ka fiican inaad ka faa'iidaysataan. annagu ka wadan ahaan Dar es Salaam waxay noogu jirtaa meelaha aadka u noogu muhiimka ah. safarkan aanu maanta ku wada soconno waa safarkii Samawade waa qaybtiisii afraad. waanu degmooyinka magaalada caasimadda Maroodijeex oo dhan ku marayno waanu ku soo horeynay maanta Dar es Salaam. Qadar Kaafi Somali Cable Hargeysa.